Maamulka Puntland ayaa soo saartay war-murtiyeed ay ku cadeyneyso inay tahay dowlad gaar ah oo ka madax bannaan dowladda federaalk Soomaaliya. Qoraal rasmi ah oo galabta ka soo baxay xukuumadda Puntland ayaa lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmayso sida dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya. Waxaa murtiyeedka lagu yiri Puntland waxay xaq u leedahay inay u dhaqanto sidii dowlad u madax bannaan fulinta waajibaadyadeeda dawliga ah. Qoraalkan ka soo baxay Puntland ayaa muujinaya inay si toos ah xiriirka ugu jirtay filla Soomaaliya oo waayadan dambe khilaaf siyaasadeed kala dhexeeyay. Dhinaca kale, waxaa magaalada Muqdisho maanta ka furmay kulan ay isugu yimaadeen wasiirada maaliyadda dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha horumarinta dhaqaalaha, hanaanka maaliyadda dalka, shuruudaha deyn cafinta iyo mideynta canshuurta dalka. Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo si rasmi ah shirka u furay ayaa sheegay inuu muhiim u yahay shirkan ay isugu yimaadeen wasiirada maaliyadda federaalka iyo heer dowlad goboleed. Wasiirka Maaliyadda ayaa sheegay in diiradda ku saari doonaan arrimaha mudnaanta u leh horumarinta dhaqaalaha dalka, mideynta hanaanka canshuuraha, dhamaystirka shuruudaha barnaamijka deyn cafinta. Shirkan wasiirada maaliyadda dowladda federaalk Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa sidoo kale looga hadli doonaa mashaariicda horumarineed ee Bangiga Adduunka uu ku taageerayo guud ahaan Soomaaliya iyo deeqaha maaliyadeed. Waxaa sidoo kale shirkan ka qayb galaya wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada dalka, maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxweynaha dalka iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha dowladda federaalk Soomaaliya.